السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعمل شرفت لنا نقول حدن وتسود وين مرة بعدية مرة صدحات إن شاء الله تعالى. ما أنت وحنا دين هاينا سدح قري أو إيبه قريشن قريئة ومحن كورها لبل لقي يبسدي هل قريبة لقي يبسد عفوا ما شاء الله وقري هذا كيسان قري وين يا قري يربين قريها كقلنا هل قري وين يا قري يربين قريها إن كقلنا إن شاء الله تعالى قري جاني وسقال متر يا أفر يا 10 متر أو حق درك قولي هذا قروح بدن قولي كاريكونا والدوين بهر مرتا ما شاء الله لبا ودا هر مرة ودوين وين هي ودا داس بهر مرة كله ما شاء الله حاجة سنقدر كم مرسا بعمل شرفت لنا نقول إن شاء الله تعالى قولي جاني وقولي آد وقروح بدن رنتي أو محن كنا جيبسون بورد عجيبة لو حري قولي جاني واسداد يو ما شاء الله سيدي يا فرتن كون ويه غوريغان كلنا داركيسانا ان شاء الله تعالى isaguna waxa weeye ma sha Allah ka kale weyn uure laba gurigan iyo waxaanu gali doonaa guri weyn marka guriga weynina isaguna waa cajiib kana waa cajiib laakiin cabirkay kala yar yihiin macmiil guriyahan bas baa hormara ama hal sakadi ay ka xigtaa baska jigjiga yar insha Allah ta'ala qaybta rinji cadaana la marinaya markaysan qaybta waxa la marinaya rinji cadaana qaybta yara ugu hooseysa waxa la marinaya Allah musta'an jibsi waxa la marinaya halkaas oo kale kaas guriga halka ka marsan oo kale la marinaya Allah musta'an inta dhaxal rinji Ethiopia iyo waxa lagu buufinaya waa guri ajaa'ib weeye si gaar ah ayaa loo qalabeeyay daarada iyo fadhiga iyo daarada insha Allah ta'ala haddaba gurigan waxa laga bilaabay 48 guriga kalena 75 guriga kale waa 10 mitir iyo 24 mitir halka gurigan uu ka yahay 9 mitir gudaha ayaynu galayna insha Allah ta'ala 9 iyo 15 ama 9 wada mid ahaan noqonaya gudaha aynu galayna insha Allah ta'ala galayna waa guri aad loo qurxiyo halkan waa la cadeynaya albaabadan iyagana waa la cadeynaya insha Allah ta'ala guryahan macmil dhisay kooda waxaan idin soo saarnaa insha Allah ta'ala sida kuwa dhamaaday imka dhamaaday ay noqonayaan ay noqdeen kuwii hore loo iibsaday xagga dushaan idin soo saarnaa insha Allah ta'ala ama guryaha waxaan idin saarnaa xagga insha Allah ta'ala waa kan ama waxaad ka arki doontaan qaybta iyada Facebook ee rasmi real estate ayaad ka arki doontaan insha Allah ta'ala ama qaybta iyada insha Allah ta'ala waxaad ka arki doontaan YouTube ka insha Allah ta'ala macmiil sharafta la nagu xiran وكان gurigan إن شاء الله تعالى ما أركيسا كاس مطبخي وهان كان نمت تعرض وعين كان أدو قرح بدرنتي كان قل الكسول منهم قل الله يرير معها مركيب على دقي ما أنت كان نوى قل كهردده سوق أبوية قل كهردده أبوية هاي رنتي ما شاء الله كان نوى حوية قل كله ما شاء الله كان وحوي قل كله معمل شراد أو قاعد أوجد أيام سكت جينا لكن ما شاء الله كان وفردي ما شاء الله وفرد آد لو قرحية رنتي آد لو قرحية بالأجل هذا فردي كان ما شاء الله هل كان مدو هل كان وحلا قلنا يا شبه غيره مدو إن شاء الله تعالى شبه غيره مدو يا سالو قلنا يا ودي كان الله هل كاس الله كبحيا qaabka uu noqonayo insha Allah ta'ala qaybtayada Facebook sawirada oo dhamaaday oo leerkii bixinaya ka daawo insha Allah ta'ala rasmi real estate insha Allah ta'ala hadaba macmil insha Allah ta'ala guriyahan waxa ku ilaahay geesa gaar ahaan xaafada jigjigaya macmil guriyahan hal idimo oran karo halkaas ku yeelan inagoo ilaashanayna maxaan ku ilaaha shaqada iyada dilaalnimo awgeed idimo oran karna halkaas ku yeelan toos baa dadka ku tilmaanay waa tagaysaan leen dadkana inta ilaahay ka baqanaysaa oo yata insha Allah ta'ala maxaan ku dhaaqo soodhanaysa meeshan aad ka aragtay inay meherad tahayba dadkan ma fahansana Facebook aan ka arkay kuwa yidhina waan aragnay kuwa yidhi Facebook aan ka aragnay maxaan waxaad dilaan laga qaadaysana aragnay insha Allah ta'ala laakiin ku xisaabtama inay meeshan meherad aan anagu iska leenahay ay tahay oon wax ku xaysiino oo qof dukaan sharaab ka qaadanayo oo dukaan maxaan ku dhahaa qof dukaan ka maxaan ka adeeganayo kala dad dukaan ka adeegato tiraha dukaankan halkan ka arkay baad lacag iga qaaday يا بدكان كان أركي بلانتيس معني أركي بعد العقد قاعد يقف دو إلهه يهضم محن كورا بيج كي يجن أركان وإلههم حد
Facebook baa lacag qaada waa isku mid marka qofka doonaya insha Allah ta'ala inuu soo garaaco ha ogaado inaanan anagu waxba dhisin oo nahay dadkooda wuxuu fududeeyay maxaan ku dhamaa ummadan wuxuu fududeeyay insha Allah ta'ala oo inay arkaan u fududeeyay maxaan ku dhahaa hadii aad dilaal dirsan lahaydun oo kala u maarnaa anagu insha Allah ta'ala oo halkaaga ku daawatay wixii adoo si fiican u daawaday ayuun bay ka dhigantahay insha Allah ta'ala anagu shaqadan aanu hayno waana meherado insha Allah ta'ala anaga noo furan oo maxaan ku dhahaa ma aha oo lacag naga baxdo oo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa lacag ku xayisiino oo inay idin soo gaadhaan awgeed lacag aan ugu xayisiino insha Allah ta'ala kan waa madlaqi aad u qurux badan marka insha Allah ta'ala ilaahay waxaan u dardaarmaynaa inuu ilaahay ina cafiyo dhamaanteenba intii qaldan iyo intii saxsan ba insha Allah ta'ala dadku ma wada xumee qof iyo dhif weeye inta xuni inta wanaagsan baa badan insha Allah ta'ala maxay sharafta lana wuxuu insha Allah ta'ala waxaanu gali doonaa guriga weyn insha Allah ta'ala la socod wanaagsan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh macmil insha Allah ta'ala salaadii oo ina soo gaadhay awgeed ayaan u dadajinaynaa gurigan caynkan uu noqonaya sidan oo kale ayuu noqonayaa gurigan dhamaado kale ayuu noqonayaa maxaan ku dushiisu haasoo kale oo guri aad u qurux badan hadaba gudaha ayaynu galaynaa gurigan waa la waraabinayaa weydin karka in la waraabinayo soo ma aragtaan oo kala waraabinayo nin aad u tayo fiican baa dhisaya guryahan oo si fiican u waraabiya halka marmar baa la gelinayaa sida kaas oo kale ah arkaysaan markaas la waraabinayo deerkiisa laba gaari ayaa galaya waa 4 jiif oo fadhiga iyo cuntadii iyo qolkii dibadda weydin karka in la waraabinayo guryaha arkaysaan qasabadii wuxuu ka loo xidhiidhay qasabada caag baa laga dhigay kuwii birta ma aha maadaama guryaha u tayo badan yihiin qasabadahan guriga biyaha u keena waa caag baa laga dhigay caagga wada ilaa 10 sano garatiina leh oo caag moogta waa cajiib hadaba gudaha ayaynu galaynaa gurigan insha Allah ta'ala gudaha ayaynu galaynaa ilaahay idankii la socod wanaagsan ma sha Allah waka daardu Allahu musta'an daaradu wata kan waa qolkii madbaxa oo barandaha weyn leh ma sha Allah waayahay guriga dhismihii baa ku socda waka markaasaan aad baa runtii loo qurxiyay kanna waa qol waa daaradii dhexe kan waa fadhigii oo aad u qurux badan weeye isagoo leerarku shidan yihiin baa inoo fiicnayd laakiin weli leerka lama shidin lama istaanin weli gurigan arkaysaan fadhigu waa fadhiga aadka u weyn ma sha Allah waayahay waa kan macmil ma sha Allah daaradu weyn buu halkan ku leeyahay oo gypsum board kale weyn oo gypsum board kale ayuu halkan ku leeyahay ma sha Allah bayr buu lahayn gurigu marka aad buu qurux baday gurigan ma sha Allah halkan waa daarad TV-ga lagu daawado waa daarad weyn aad arkaysaan kanina waa qolalka aad waa weyn yihiin salaadii ina soo gaadhay awgeed baan dadajinaynaa kanina waa qolkii hurdada oo aad u weyn runtii ma sha Allah guriga ka wada waraabiyay imka wada waraabiyay soo socda ee hadana wada waraabiyay inamada la khayraasay waraabinta sibirka iyo waraabintu isku fiican yihiin oo guriga hadaan aad loo waraabin sibirka waraabinta ku adkaada diga arkaya madbaxu aynka noocaas oo ka dhigay maxaan ku dhahaa hurdada aad buu qurxiyay muraayadii buu ku xidhayaa qaybteeda Facebook ka daawada insha Allah ta'ala muraayadihi iyo nooc ka dhigayo iyo cadaankii oo dhan iyo gurigan dhisayinkiisu cayn ku noqonayo ma sha Allah waka arkaysan gurigan waa 4 jiif fadhi iyo cunto iyo qol dibada deerka laba gaari ayaa galay waa 12 mitir iyo 24 mitir xagga dhererka halka kiyara ka aha 9 iyo 24 mitir insha Allah ta'ala waka ma sha Allah fadhiguna waa sidan ma sharafta lana wuxuu insha Allah ta'ala ka faa'iideyso guryahan bas baa hormara insha Allah ta'ala